kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta 462 ee barnaamijka Tubta Nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. waad mahadsantahay Faisa. maantana waxaan barnaamijka diiradda ku saaraynaa mowduuc aanan inta badan arkin balse qaabeeya sida aan u fakarno, wax u dareenno, una dhaqanno oo xitaa saameeya badqabkeena jireed. Ma waxaad ka hadlaysaa caafimaadka dhimirka? aad iyo aad waxay ku saabsan tahay badqabkeena maskaxeed, shucuureed iyo keena bulsho. waana mowduuc ku soo beegmay waqtigii ku habboonaa 10 bisha Oktoobar. waa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka, waana waqti la xoojiyo wacyigelinta caafimaadka dhimirka adduunka, isla markaana la agaasimo dadaalada lagu taageerayo caafimaadka dhimirka iyo badqabka. aad iyo aad halku-dhigga maalinta caafimaadka dhimirka ee dooratay hay-adda caafimaadka adduunka oo ah caafimaadka dhimirka ee xaaladaha bini'aadanimada degdega ah wuxuu si gaar ah muhiim ugu yahay Soomaaliya. marka lagu jiro mashaqooyinka ha ahaadeen kuwa ka dhashay colaadaha, barakaca ama masiibo, taageerada caafimaadka dhimirku waxay qayb ka noqotaa jawaab celinta arrimaha bini'aadanimada. waa sax midaasi Cabdi Casiis, sida ay tilmaamayso istiraatiijiyadda wasaaradda caafimaadka dhimirka ee 2019 ilaa 2022 caafimaadka dhimirku waa mudnaan caafimaad oo heer qaran ah. sanado badan oo colaado ah oo ay weheliyaan rabshado, tiiraanyo, barakac baaxad leh, ceebayn baahsan iyo takoor lagu sameeyo dadka qaba xaaladaha maskaxeed, fursadaha waxbarashada iyo shaqada oo xadidan ayaa dhammaantood horseeday baahiyo caafimaadka dhimirka la xiriira oo bulshada ku dhex baahay. qiimeyn ay si wadajir u sameeyeen wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo bahwadaagta qaramada midoobay sanadkii 2021 ayaa lagu ogaaday culeysyo xaalado maskaxeed oo ay qabaan dadkii sahanka lagu sameeyay. tirakoob kasta waxaa ka dambeeya hooyo, arday, walaal, ilmo iyo laga yaabay qof naafanimo la nool oo dhammaantood ah dad istaahila inay ku noolaadaan sharaf isla markaasna ay helaan taageero iyo rajo. qaramada midoobay oo taageero ka helaysa dowladda Soomaaliya iyo bulshada rayidka ah ayaa ka shaqaynaysa ballaarinta taageerada caafimaadka dhimirka iyo midda maskaxeed oo ay heli karaan dadka qaba xaaladaha dhimirka. ha yeeshee isbeddelka dhabta ah wuxuu ku xiran yahay dhammaanteen, kuma xirno oo keliya siyaasado iyo xarumo caafimaad, balse sidoo kale wuxuu ku xiran yahay wadahadallada ka dhaca guriga, taageerada iskuulka iyo in bulshadu ay dhammaanteed isku naxariisato. haddaba dhegeystayaal, si aan mowduucan wax badan uga ogaano waxaa maanta stuudiyaha nagula sugan Dr. Cabdikaafi Cabdulaahi oo hay-adda caafimaadka adduunka WHO u qaabilsan caafimaadka dhimirka, iyo Seenab Axmed Nuur, madaxa caafimaadka dhimirka wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada ee Soomaaliya. Dr. Cabdikaafi Cabdulaahi, haddii aan adiga kugu bilaabo, maxay tahay muhiimadda maalinta caafimaadka dhimirka u leedahay Soomaaliya, adigoo sidoo kalena eegaya halku-dhigga sanadkan ee ah caafimaadka dhimirka iyo xaaladaha degdega ah ee bini'aadanimada? maalinta caafimaadka maskaxda waxay muhiim u tahay in la daryeelo iyo maalgelinta lagu jiheynayo dhinaca caafimaadka maskaxda iyadoo la xoojinayo mudnaanta siyaasadeed iyo taageerada hay-adaha deeqaha bixiya. mowduuca sanadkan ee WHO caafimaadka maskaxda xaaladaha gargaarka bini'aadamka oo ay daaran tahay helitaanka adeegyada caafimaadka maskaxda xilliyada masiibooyinka iyo xaaladaha degdega ah wuxuu diiradda saarayaa in helitaanka adeegyada la heliyo, la ballaarinta taageerada maskaxeed ee bulshada iyo goobaha xaaladaha degdega. tani waxay toos ula jaanqaadaysaa Soomaaliya, halkaas oo adeegyada helitaankoodu ay yihiin caqabado ay ka jiraan caqabado aada u waaweyn. mowduucan wuxuu siinayaa fariin cad oo lagu dhiirigelinayo dowladda iyo iskaashada deeq-bixiyaasha iyo mudnaanta siinayaan caafimaadka maskaxda gudaha iyo qorsheynta bini'aadantinimada, taasoo qayb weyn ka qaadanaysa wacyigelinta bulshada iyo isku xirnaanshaha bulshada hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka dhimirka. maalintan waxay tahay maalin oo iskugu imaadaan dadka dhan, ay sidoo kale sare loo kiciyo lana yareeyo ceebeynta xanuunada dhimirka ku dhaca. haddii aan eegno dhinaca WHO, maxay yihiin baahiyaha ugu muhiimsan ee ay qabaan dadka qaba xaaladaha dhimirka ee ay saameeyeen colaadaha, barakaca iyo abaaruhu? dhibaatooyinka ka jira markii la dhaho xanuunada ku dhaca dhimirka iyo taageerada nafsiyeedka waxaa ka mid ah shaqaale yari iyo xirfadlayaasha ka shaqeeya shaqaalaha caafimaadka, iyo sidoo kale qoondeynta lacagta loogu talagalay xanuunada dhimirka oo aada u yar iyo ama aysan jirinba, ceebeynta iyo ka gaabsiga raadinta caawimaad. dad badan ayaa weli ka xishooda in ay raadsadaan daryeelka caafimaadka maskaxda, ayadoona ay tahay wax aada u muhiim u ah bulshada dhexdeeda.
fahamka guud oo ka jira dadka in ay u fahansan yihiin xanuunada dhimirka in ay yihiin wax aan jirin ama ay faham darada ka jirta oo ay dadku ugu tagaan badan ay aaminsan yihiin inuu qofkaas haysto jin ama il ay ku dhacday taas faham daradaas oo keenaysa dadka inaysan aadin xarumaha caafimaadka waxaana taas looga gudbi karaa yani caafimaad nafsiyada degdega sida psychological first aid ay dhahaan oo lagu tababaro xarumaha caafimaadka ay dhan wadanka guud ahaan daryeelka caafimaad maskaxda heerka koowaad yani xarumaha heerka koowaad waxa dhahaan primary health care si loo aqoonsado loona daweeyo niyad jabka walbahaarka iyo walwalka murugada iyo hurdo la'aanta ama dhammaan xanuunada dhimirka ku dhaca taageerada bulshada oo la xiriirta sida loo dhiso xiriirada bulshada iyo adkeysiga bulshada. maxay yihiin tallaabooyinka ay qaadaysa WHO si ay u ballaariso taageerada caafimaadka dhimirka iyo midda maskaxeed sideese loo cabirayaa saameynta waxqabadkaas? waxyaalaha ay WHO qabato waxaa ka mid ah hagitaanka si caafimaadka maskaxda loogu daro daryeelka caafimaadka guud iyo jawaabaha degdega ah. waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ay WHO qabato isku duwid iyo hoggaanka. waxay ka caawisaa hoggaanka iyadoo la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale si kooxda shaqada farsamada MHP's Technical Working Group heer qaran iyo heer gobol loo mideeyo hawlaha caafimaadka maskaxda iyo ilaalinta iyo waxbarashada. kobcinta awoodaha shaqaalaha tababaro gaagaaban oo ku saleysan xirfadda MHGAP ama sidii loo ilaalin lahaa tayada adeegyada caafimaadka dhimirka iyo sidoo kale kobcinta xog ururinta iyo kormeerka oo iyo tilmaamayaasha caafimaadka maskaxda oo lagu daro nidaamka xogta caafimaadka iyo warbixinada gargaarka bini'aadanimada taasoo qayb ka qaadanaysa in la tixgeliyo caafimaadka dhimirka. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdikaafi Cabdullaahi oo hay'adda caafimaadka adduunka WHO u qaabilsan caafimaadka dhimirka balse imikana dhegeystayaal aan u gudubno waraysi aan la yeelanay Dr. Zainab Axmed Nuur madaxa caafimaadka dhimirka wasaaradda caafimaadka iyo adeegga bulshada Soomaaliya. waxay ugu horreyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan xaaladda caafimaadka dhimirka Soomaaliya iyo siyaasadaha iyo barnaamijyada muhiimka ah ee dawladda Soomaaliya ay hirgelinayso si wax looga qabto xaaladda caafimaadka dhimirka Soomaaliya. saa ognahay caafimaadka dhimirka wuxuu weli ka mid yahay mudnaanta ugu sarreysa caafimaadka dadweynaha ee Soomaaliya maadaama bulshadeena Soomaaliyeed ay weli la tacaalayaan saameynta dheer ee colaadaha barakaca iyo faqriga iyo xaaladaha bini'aadanimada ee markasta soo kordho oo ku soo laabto wadanka. caqabadahaas waxay aad u horseedeen in dhaawacyo badan ay soo gaaraan bulshada xagga dhimirka iyo xagga nafsiyeed iyadoo cuduradaas ay la xiriiraan saameynta dheer ee colaadahan. wasaaradda caafimaadka waxay si buuxda ah u aqoonsan tahay muhiimadda caafimaadka dhimirka waxayna aad ugu qaata tilaabooyin badan oo istaraatiijig ah oo lagu xoojinayo daryeelka iyo fayqabka nafsiga ee bulshada. dowladda Soomaaliyeed waxay dejisay istaraatiijiyada qaranka ee caafimaadka dhimirka iyo siyaasadda qaran ee caafimaadka dhimirka labadaba kuwaas oo qeexaya hanaanka midaysan oo qeybaha kala duwan ee bulshada lagu howlgelinayo si loo horumariyo adeegyada caafimaadka dhimirka loona yareeyo takoorka iyo culeysyada kale ee la tacaalayaan bulshada markay la xiriirto saameynta cuduradan. tallaabooyinkaas waxaa lagu hirgelinay iyadoo loo adeegsanayo mental health cabka oo lagu tababaray shaqaalaha caafimaad iyadoo la hubinayo in adeegyada caafimaadka dhimirka ee gaaraan heerarka kala duwan ee bulshada iyo xarumaha caafimaadka taas oo kor u qaadayso helitaanka daryeel tayo leh iyo fayqabka nafsiga ee dadka Soomaaliyeed. sidee ayay wasaaraddu u xaqiijinaysaa inay dadku helaan shaqaale caafimaad oo u tababaran caafimaadka dhimirka gaar ahaan bulshada miyiga iyo kuwa colaaduhu saameeyeen? wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanayso hay'adda caafimaadka iyo hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga waxay hirgeliyeen tababaro caafimaadka dhimirka iyadoo oo xoog ay saareen dhisidda awoodda shaqaale caafimaad ee aan takhasuska u lahayn
iyadoo lagu tababaray barnaamijka mental health cabka si ay u aqoonsadaan una maareeyaan xaaladaha caafimaadka dhimirka ee asaasiga ah ilaa hadda 100 shaqaale caafimaad oo ka howlgala dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa loo tababaray waxaana lagu xoojiyay cutubada caafimaadka dhimirka ee isbitaalada guud sidoo kale wasaaradda waxay horumarisay nidaamka isku xirka caafimaadka dhimirka ee heer maamul goboleed iyo gobolka Banaadir si loo hubiyo joogteynta adeegyada iyo gudbinta kiisaska xitaa meelaha colaadaha ka jiraan meelaha iyo ama xaaladaha degdega ee saameeyaan sidoo kale wasaaradda waxay horumarisay nidaamka isku xirka MHPSS-ka ee heer maamul goboleed iyo gobolka Banaadir si loo hubiyo joogteynta adeegyada iyo gudbinta kiisaska xitaa meelaha colaadaha ee ka dilaacan ama xaaladaha degdeg ee saameeyaan ugu dambeyn maxay sameynaysaa dawladdu si loo yareeyo caabaynta loona dhiirigeliyo in dadku ay caawimaad raadsadaan iyadoo loo marayo iskuulada culimada saxaafadda iyo goobaha shaqada yareynta ceebaha iyo faquuqa waa tiir muhiim u ah oo kamid ah tijaabada qaran ee caafimaadka dhimirka wasaaradda waxay la shaqeysaa culamaa diinka macallimiinta shaqaalaha caafimaadka bulsho iyo warbaahinta si kor loo qaado wacyiga ku saabsan caafimaadka dhimirka oo yahay qayb muhiim ah caafimaadka guud iyo fayqabka dadweynaha iyadoo loo marayo ololaha qaran sida xuska maalinta caafimaadka adduunka wasaaradda waxay qabataa wada hadal bulsho iyo barnaamijyo warbaahineed oo toddobaadkaas ka soconaya dalka oo idin wasaaradda waxay markasta dhiirigelisaa wada hadal furan oo ku saabsan caafimaadka dhimirka tan waxay keenaysaa in dadka ay hadda raadsadaan caafimaadka dhimirka wasaaraddu waxay sii wadaa wacyigelinta iyo iskaashiga bulsho si loo xaqiijiyo in qof kasta uu si xor ah iyadoo aan ceeb iyo faquuq aan jirin u heli karo daryeelka caafimaadka dhimirka oo tayo leh raadinta adeegyada caafimaadka dhimirka ma ahna ceeb balse waa tallaabo geesinimo leh oo lagu daryeelayo qofka ku daryeelayo caafimaadka naftidiisa iyo midka bulshadeed caafimaadka maskaxda waa qayb muhiim ka ah caafimaadka guud takoorita ama ceebeynta dadka la nool xanuunada dhimirka waa dhaqan aan habbooneyn oo caqabad ku ah bogsashada qofka iyo caafimaadka bulshadaba waa in aynu dhiirigelinaa fahamka caafimaadka dhimirka taageernaa iscaawinaa si aan u dhisno bulsho naxariis leh bulsho caafimaad qabta oo qof walba muujinayo qadarin iyo daryeel aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd Saynab Axmed Nuur madaxa caafimaadka dhimirka wasaaradda caafimaadka iyo adeegga bulshada Soomaaliya oo barnaamijka tubta nabadda martii inoogu ahayd balse iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan gabay ku saabsan muhiimadda ilaalinta caafimaadka dhimirka oo inoo marinayo Liibaan Cabdi Warsame dhibaatada dagaalada socdee dabada dheeraaday dandariya waxaa laga dhaxlaa dhaawacaan harine cudurrada ku dhaca maanka ee dhimirka naafeeya dhulkayaga waxaa laga helaa 12 nuuce waana loo dhintaa goorta aan dhaymo loo heline sida geel dhukaan qaba dadkan horay u dhaanteeyey ee aan dharaar iyo habeen tiirin dhinacooda iyo waalidan dhaqante ee dhooban agaheenna labaduba haddii la isku dhigo wax isma dhaamaane inta maanka loo dhayo ileen waa dhibanayaale dhakhtarrada dareemaha dhintiyo dhimirka daaweeya waa in loo dhoweeyaa sidani waa dhogxumo weyne dadka dhimirku naafoobay ee dhooban sabadkeenna marna laguma dheeree intii dhiilo lagu beeray marka uu dhirfo meel fog uu dhagax ka soo tuuro dabadeedna uu dhowr daqroo dhiig ka yara daadsho inta qoobka dhaad looga xiro geed silsilad dheer leh misna dabarka lagu dhuujiyaa waa dhigxumo weyne dhibarahan la daayacay masana dhabarka loo jeedshay mar haddaan qalbiga laga dhayen dhaawacyada gaaray dhaqamada gurican ee dulmiga dhiirigelinaya xarigguna u dheeryahay dadkaas waa in laga dhaafo waa hagaag dhegaystayaal aan intaas uga gudubna gabaygaasi ka hadlayay muhiimadda caafimaadka dhimirka waxaa inoo marinayay Liibaan Cabdi Warsame wuxuuna ugu dambeeyay barnaamijkeennii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faaiise Cabdi Warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin kara bartaan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan